toddobaadka soo socda waxaa magaalada Muqdisho lagu maxkamadaynaya eedeysana Sayd Cali Macalin Daawud oo ah ninka labada jeer maxkamadaha dalka ay ku xukumeen dilka toogashada ah balse racfaan iyo cabasho ka soo qaatay. ehelka Sayd Cali ayaa quudareynaya in wiilkooda ay ka badbaadiyaan tiirka cadaaladda ee iskuul booliisiya iyaga oo maraya waddo kasta oo arrinkaasi u sahli karta. maxkamadda sare ayaa go'aamisay in 24 bishan la soo taago fagaraha cadaaladda eedeysanaha si dib u eegis loogu sameeyo xukunkii ugu dambeeyay ay ku riday maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. aabaha Dhalaylul Cabdicasiis ayaa sugaya inuu cadaalad u helo gabadhiisa oo nolosha lagu gubay diidayna inuu qaato diyo ka badan magta qof dumara. isku dayo badan oo ay bixiyaan odayaasha dhaqanka beesha Habargidire ee la xiriiray in dhanka qoyska caruurta loo soo maro ayaa ku soo dhamaaday fashil iyo fadeexad ay dhag jalaq u siin weyday maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. dadka Soomaaliyeed ayaa sugaya in mar kale xukun dil toogasho ah lagu rido Sayd Cali Macalin Daawud oo ay ku tilmaameen nin manaxa isla markaana si arxan darro u dilay xaaskiisa oo u lahayd uur 6 bilood. toddobaad kadib indhaha dadka Soomaaliyeed waxay ku sii jeedaan dhanka maxkamadda sare ee dalka oo tan ugu sareysa dalka oo dhan go'aankeedana uu ku xigo fulinta awaamirteeda. eedeysana Sayd Cali Macalin Daawud ayaa labadii maxkamadood ee dilka ku soo xukumay u sheegay hadallo iskhilaafsan oo la xiriira dilka marxuumad Luul Cabdicasiis taas oo keentay isaguba in qudhiisa lagu xukumo dil toogasho ah ayna isku raacaan maxkamadda gobolka Banaadir iyo midda racfaanka. kiiskan in ka badan 7 bil ayuu soo jiitamayaa iyada oo labada reer ee dhibanaha iyo eedeysanaha aanay u furnayn wax wada hadal ah marka laga reebo in ay ku kala baxaan maxkamadaha dalka. dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn u garab istaagay aabe Cabdicasiis oo ah aabaha Dhalaylul Jazeera iyaga oo si weyn uga qayb qaatay aaskeeda halkaasina ka sheegay in cadaalad u helidda Luul ay tahay biyo kama dhibcaan. go'aanka maxkamadda sare inkastoo aan la hordhici karin haddana waxaan la iska indhatiri karin go'aanadii labada darajo ee maxkamadaha gobolka Banaadir kuwaas oo lagu soo bandhigay cadeymo muujinaya in Sayd Cali uu dilka xaaskiisa isagu ka dambeeyay. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo si qoto dheer u sharaxay sababta dilka toogashada ay u cuskatay ayaa sheegtay in qaraa'inka la cuskan karo marka marqaatiyaal rasmi ah la waayo taas oo ay dad badan sheegeen in ay tahay arrin lagu qanci karo. si kastaba ha ahaatee Sayd Cali Macalin Daawud ayaa xaaskiisa gubay 26 bishii January ee bilowga sanadkan 2024 isaga oo baxsad ka cadaaladda muddo 7 ah ayaa laga soo qabtay gobolada dhexe ee dalka waxaana Muqdisho la keenay 2 bishii February 2024. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa 6 Maarso ee sanadkan ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo ugu dambeyn loo gudbiyay maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo iyaduna ayaday xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda gobolka Banaadir ay ku riday Sayd Cali Macalin Daawud. si kastaba ha ahaatee qoyska Sayd Cali ayaa dhowr jeer oo hore isku dayay in ay wiilkooda kala baxaan xabsiga iyaga oo ka badbaadinaya xukunadii ay ku rideen maxkamadaha kala duwan ee dalka. go'aanka kama dambaysta ahi waxaa la gaari doonaa sida la rumaysan yahay bishan aan ku jirna ee Agost iyada oo Sayd Cali ay maxkamadda sare ee dalka hadda kiiskiisa qaadaa dhigi doonto.